saaray muxuu ahaa la dagaalanka qiimo dhaca ku socday shilinkeedna oo mahadnaqayna inay muxuu ahaa siday muxuu ahaa noogu marti qaadeen sidaan arinta talo uga geysano muxuu ahaa soo jeedintoodii iyo dadaalkay sameynayeenna oo uga mahadnaqayna runtii muxuu ahaa ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliya iyo reer Soomaaliland markooda koobad laba qolo ma hay qolo kaliyeeyna dan kaliyeeyna wada leena shilinkana xukuumaddu ma leh Soomaaliland baale waa wax inaga dhaxeeya oo in wada leenahay hadduu qiimo yeesho dhamaanteen buu qiimeeyno wada yeesho hadduu qiimo dhacana dhamaanteen buu inaga wada qiimo dhacay sida awadeed arrin cid gaar ah lagu duraamanayo ama laga baryayo inaynu ilaashano danta inaga dhaxaysa maaha marka loo baahnaa wuxuu bay ahayd muxuu ahaa dadku aragtida iyo afkaarta iyo talada way ku kala gedisanaan karaan dadka intay ka dhaxaysa hawshaas ilaalinteedu dantaas ilaalinteedu inta ka dhaxaysa inay isu yimaadaan ay ka wada tashadaan sida loo ilaalinayo sida loo qiimo gelinayo muxuu ahaa ayuun baa runtii muxuu ahaa ay dardar geliyeen horeba u jirtay oo uga mahadnaqayna arrintaas ganacsatada reer Soomaaliland hadda nahay dadka dhaqaalaha qaranku waxa ay deeshidaal ma lihin khayraad kale ma lihin waxa inaga dhaxeeya hantida ayare dukaamada iyo bakhaarada taala ayaa inaga dhaxaysa ninka ganacsadaha hayaanada masaarif buu ka qaataa xukuumaduna cashuur bay ka qaadataa cashuurtaas ma dadka inta kale ay ku nool yihiin marka hantida ay leenahay horta waa taas hal la fahmo كو سيدا ودد محوها وارهن runtii annaga ayaa runtii uga nugul cid walba maxooha in deganaanshaheena iyo dawladnimadeena inay maxooha ciirto ay dhibaato ku timaado ninka waxaya uga nugul sida awadeed waa uga la xajaclo badan lahay cid walba wixii qarannimadeena dhisay ee xoojinaya muxuu ahaa in la qabto waa uga la xajaclo badan sida awadeed horena waa ugu macaamilaynay imankana waa ku macaamilaynaa waa sii xoojinaynaa oo waa dhiiri gelinaynaa waa muxuu ahaa intii awoodayada waa muxuu ahaa waanu ka haynaynaa shilinka Soomaaliland supply-ga badan ee suuqa galaya sida dawladda u ballan qaaday muxuu ahaa imanka bad rag badan oo ka haya ayaa jira nin walba karaankiisa intuu yahay waa ka haynaynaa waa ku dadaalayna intii aan awoodnana muxuu ahaa lacagta adag ee muxuu ahaa aanu hayno inaanu suuqa runtii soo gelino oo wax laga qabto iyadana waa ku dadaalayna haddii Allahu yiraahdo sida muxuu ahaa aanu isla qaadanayna waxaan isleeyahay kol hadii la iska warhayo oo xukuumadda iyo ganacsatadu tala joogta ay ka yeeshaan maantana maxaynu yeelaa iyo halku maraya waxay naga xumaanayaan ma jiraan kala maqnaanshaha iyo iska warhayn la'aanta ayaa keenaysa arrimaha in badan waxaan runa in badan kuma salaysna qiimo dhaca ku imanaya shilinkeena kuma salaysna baahida badan ee doolarka kuma salaysna ee war la'aanta la iska warlaayahay inta badan keenaysa ama hadal ruumara oo jirin oo suuqa la geliyo ayaa marmarka qaarkood uu ku qiimo dhaca sida awadeed marka la iska warhayo la ogsoon yahay kolba halka xaaladdu marayso muxuu ahaa laga wada tashado wixina noqdo wax transparency oo la isla wada ogsoon yahay waxba inaga xumaan maayaan marka runtii ganacsatada muxuu ahaa iyo guud ahaan anigoo ah gudoomiyaha ganacsiga Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa nin walba inuu ku dadaalo muxuu ahaa inuu muxuu ahaa pocket money-giisa iyo daily use-kiisa uu Soomaaliland shilin ka dhigto oo uu shado arrintaas isbedel weyn keenaysa oo marka muxuu ahaa jeebadaheena iyo guryaheena iyo bakhaaradeena lacagtu ay taallay ku nagaato ay muxuu ahaa ay sida u filiqdo ayay qiimo yeelanaysaa markasta oo baahida circulationka iyo wareegga lacagteena batana ee baahideedu badatana qiimaheeda kor u kacaya markasta oo ay ka soo ururto gacmaheena iyo guryaheena iyo bakhaaradeena ay ka soo ururto oo banka ku soo ururtana qiimo dhac baa ku imanaya sida awadeed muxuu